السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام دمان أصحابته وهذا المر حنتكلم هذا channel كان حسب هيكسي channel كان إسقى وحنو تلقى أنت بدل حوك كساره وأن صور دقو مقالة أنا وهذا لأنه يقاوع برشا من scholarships كأي بحيان دولة ده يتعامل على كل دون الدنيا كلها لا أنت اللي كنت بشهر ديسمبر إلا بشهر جنوري إن شاء الله مركز دي أتقف دنيا إنه حلو warbixina ku saabsan minxooyinkaas iyo deeqaas waxbarasho fadlan channelkan ku soo biir oo subscribe saar xagan ay kili doontaa haduu alidmo hadii aad socoteen qaybteeni koowaad ee aan soo dhignay channelka Dalmar channel waxa uga hadalnay manxada Shiinaha oo bixinaya dalka Shiinaha jaamacad gaar ahaan jaamacadda USTC University of Science and Technology of China waxaan soo hadalnay ardayga waxa laga rabo sidoo kale ardayga waxyaabaha uu helayo sida mushaharkii billaha ahaa caafimaadkii sidoo kale deegaankii oo asna oo bilaash ah qaybta marka waxa u balansaneen inaan uga hadalno oo ku sharaxno qaabka uu qofku ku buuxsan lahaa ama application uu sameyn lahaa oo uu u dirsan lahaa dalabkiisa haddaba aan bilowno bismillaah xagga waxa noogu qoran apply now marka aan ku dhufan apply now waxa noo furmaya تاقدن University of Science and Technology of China USTC halkan waxa yaala laba doorasho register ama login markii aad cusub tahay waxa leedahay register last name kaaga full name ka email ka xagga la gelinaysa iyo password ku aynuusan ka badan 10 god marka la wax ku celinaysa password ka kadibna waxa gelinaysa check code ka oo ah afarta lambar ee casaanka ah kadib waxa leedahay register and receive email kadib marka inta dhameyso oo successful ku dhaho diiwaangelintaada waxaad su'aalaysaa dhanka login ka waxa gelinaysaa gmail ki markaas aad ku furtay kadib password ki oo asna hore soo sameysay oo idin sheegay inuusan ka badan tongod kadib check code ka wasna waa 4 lambar ee asna xasanka ah waa 7966 okay haleenahay login waa soo galnay halkan waa welcome to study in USTC kadib waxaan tagaynaa xagan online application ka waxaan noo sii furmaya daaqadan saddexdan doorasho ayaan haysanaa bachelor master iyo sidoo kale doctora ama PhD bachelorka asaga qaybtiisu waxay tahay in qofka raba inuu barto bachelorka uu dalbado waa inuu yaqaan luqadda Shiinaha oo waliba ka haystaa waxa loo yaqaan HSK taxankaas oo ka haystaa level 5 ama wax ka sareeya marka taasna aad ay u adag tahay in la helo qof luqadda Chinese ka heerkaas gaarsiisan marka waxa xooga saarina qaybta master ka dualeedmo aan hore u socono waxa lagu weydiiyay saddexdan shuruud ay ka horeysa inaad buuxiso qofka soo dalbanay waa inuu horta uusan ahayn qof Chinese ah sidoo kale waa inuu haystaa passport aan dhicin sidoo kale waa inuu maskaxiyan iyo waliba dhanka jirka labada uu caafimaad qaba talabaad laga rabo waxa weeye qofka soo dalbanaya waa inuu haystaa shahaadooyinkiisa iyo dokumentiisa oo dhameystiran yihiin ama uu heli karaa wax inta ka horeysa July 2020 taasoo macnaheedu tahay hadii aadan wali qalin jabin laakiin aad July 2020 ka hor shahaadooyinkaada helayso wali waa soo dalban kartaa adoo xitaa wali shahaadooyinkaaga aadan helin hadii aad haysatana kaba si fiican oo aad mar hore qalin jabisay ka saddexaad waxa weeye qofka soo dalbanaya waa inuu ka yiraahdaa da'da 30 sano hadii aad dalbanayso scholarship loo yaqaan ANSO hadii laakiin teen anaga hadaan ka shaqeeyno oo USTC aad dalbanayso waa inuu qof ka yiraahdaa da'diisa 35 sano okay kadib waxa leenahay waan dhamaan waan buuxinaa shuruudahaas ee hore noogu soco apply next waa leenahay okay halkan waxa yaala
scholarship kala duwan ANSO Chinese government scholarship kiyaarto dooranaysaa anaga laakiin kan maanta ka hadlayno waa kan USTC scholarship tick basaaraysaa marka tick saarto xaggan waxa yaala waxa la soo gelinaya upload ayaa jira application form key oo aan video hore uga hadalnay qaabkan u qornaa application form kan waa la soo dagaysaa meel dharka ma doonaysid waa kan xaggan ay kala soo dagaysaa rabtid in la soo dagtid download baa leedahay baa la soo dagaysaa kadib waa buuxinaysaa application kan markii aad buuxisid ayaa waxa leedahay markaas upload xaggan soo gelinaysaa markii aad soo geliso ka soconaysa waxa leedahay save and next waxaan filaynaa fahanteen stepkaas kadib halkan ayuu ka bilaabanaya marka inaan wax dalbano waa 9 step ilaa iyo 9 step step 1 waa basic information kaaga family name ka given name ka gender ka lab iyo dhidig waxa ay tahay markaas haddii aad tahay qof xaas la am qof wali aan guursan oo single ah nationality wadanka diintaada waa waxyaabo la mid markii aad dhalatay meeshii aad ku dhalatay passport numberkaaga intaas dhan ayaa xagan ku soo buuxinaysaa marka intaas buuxiso waxa leedahay save and next haddana waxaan ma buuxin oo waa iga diiday waxa loo buuxisaa marka waxaan tagaynaa step 2 step 2 asagu waa study plan-kaaga ama qorshahaaga waxbarasho qaabka aad rabto inaad wax barato koo waxaad dooranaysaa master xaggan ayaa waxa ka dooranaysaa faculty aad rabto inaad barato ka soo qaado kala waxaan dalbanayaa material science and engineering waxaan ka sii dooranayaa isla qaybaha kala duwan si hoos taag marka waa inaad mid doorato weeye waxaad dooran kartaa corrosion science and protection material physics and chemistry material science material processing engineering waxaan dooranayaa corrosion science and protection inta kadib xagga waxa ku qoran supervisors acceptance tan macnaheedu waxay tahay jaamacaddan USTC rag kamid ah oo supervisor ah hadii aad la xiriirtay oo ay ku soo aqbaleen waxa leedahay yes kadib waxa gelinaysaa mid walba inta magaciisa supervisor ku soo aqbalay magaciisa department uu ka shaqeeyo lambarkiisa iyo emailkiisa hadii aan dabcan la xiriirin oo sida u badan ah waxa leedahay no marka uu baahan yahay inta masiib buuxiso kadib waxa leedahay save and next step 3 waa imanaysaa step 3 waa education and employment waa waxbarashada iyo shaqada ku saabsan tahay xaggan waxa ku jira jaamacadda ka soo qalin jabisay wadanka ay ku taalo magaca jaamacadda hadda markaan aano Soomaaliya oo kale hakan Soomaali kadib jaamacadda Muqdisho University Pride waxa midka ah markaas aad rabto Amud University ta soo gelinaysaa kadib major waxa aad baratay duration ka baranaysay waqtiga ku biirtay iyo waqtiga jaamacadda aad dhameysay iyo waxyaabo la xiriira iyadana waa jaamacadda ay ku saabsan tahay iyo kadib waxa leedahay markaad buuxiso save and next save and next intaan save and next dhihin xagan waxa ku jira shahaadooyinka halkaas ka soo gelinaysaa haddaad tahay qof dalbanaya PhD oo kale masterkaaga shahaadada masterka iyo sidoo kale to halkan soo gelinaysaa haddii aad tahay qof dalbanaya markaas isagu master bachelorka soo gelinaysaa halkan copy of bachelor degree certificate sidoo kale transcriptga isna halkan ay ka soo gelinaysaa labadaba kadib waxa leedahay marka intaas dhameyso aad soo geliso save and next
save and next kadib waxaad tegaysaa stepka xiga stepkan waa step 4 luqadda ku saabsan yahay luqadaada hooy halkan gelinaysaa Soomaali Chinese proficiency Chinese ka luqadan saa ku tahay haddii aad tahay waxba aadan ka aqoon xalada no knowledge haddii aad taqaano markaasna dee waxaa leedahay ku fiicanahay inta SK levelka inta haysta lagana gelinaysaa 1 2 3 4 5 6 levelkaaga kadibna waa soo upload garaynaysaa haddii aad shahaadada haysta SK levelka haddii kalena ka fasoco waxaa dhahdaa no knowledge xagan haddii aad haysid English proficiency horta qaabka uu yahay waad isqiimeynaysaa waxa iska leedahay good TOEFL haddaa haysatid IELTS GRE GMAT dhammaantood midka haysta halkan ku qoraysaa scoorka ka haysatid kadibna waa soo upload garaynaysaa okay haddii aadan haysan hawlwalin waxaad u baahan tahay inaad haysato warqadda loo yaqaano medium language of instruction waa ka soo qaadanayso jaamacadaada warqadan waxay cadeynaysaa in bachelorkaaga ku soo baratay luqadda Englishka waan u baahanay marka in English ma sii diyaariso marka aydan waxay ku fududeynaysaa inaad ka socoto marka halkan aad ka soo upload garanaysaa ayada upload ayaa la soo gelinaysaa haddii ay haysato haddii aadan haysanna waxa ka soo qaadanaysaa jaamacadda waxaan qasaba in shaabad jaamacadda ay leedahay kadib waxa su'aashan waxa weeye waxa doonaysaa inaad ku barato luqadda Chinaha ama Englishka dabcan waa English baa leedahay kadib waxa leenahay save and next waxaan tegaynaa stepka shanaad contact information waa waxyaabo ku saabsan meesha aad degan tahay lambarkaaga kan asaga kuma daaheno step 6 other information kan asaga waxa weeye family xubnaha family ama qoyska ayaad informationkooda gelinaysaa qofka ugu horeeya aabaho kale magaciisa relationka aad la leedahay oo aabo waa leedahay aabo uu yahay age-ka uu jiro meesha uu ka shaqeeyo qofka labaad ee ku soo xiga hooyo hadii tahay aabe adeer walaalka weyn dhamaantood waxa gelinaysaa magaciisa relationka ka dhaxeeyo hadii hooyada tahay waa hooyaday haduu walaalka yahay waa walaalkay haduu yahay adeerka waa adeerkay meesha uu ka shaqeeyo sidoo kale qofka saddexaad markaa ayaan soo buuxinaysaa kadib save and next step 6 step 6 waa recommender information waa warqadii loo yaqaanay recommendation letter qofkii aan aqoon ama aan fahansan recommendation letterka waxa uu laabanaysaa qaybtii koowaad ee videoga aan soo dhignay channelka Dalmar channel halkaas ayaad ka soo fahmaysaa waxa laga wado recommendation letter halkan waxa uu soo sheegay in qofka laga rabo laba recommendation letter ugu yaraan marka waxa soo gelinaysaa emailka macalinka magaciisa koowaad magaca dhexe iyo sidoo kale magaca ugu dambeeya iyo organizationka oo markaas ka shaqeeyo sidoo kale macalinka labaad sano soo gelinaysaa kadibna waxa leedahay halkan kaga soo daraysaa warqadii marka recommendation letterka ahaa waa soo gelinaysaa macnaha kadib waxa leedahay step 8 ka step marka dhamayso waa inaad dhahdaa save and next anu hadda waxaan save and next u dhihi laahay waxa ma buuxinay marka igama yeelayo inaad dhahdo save and next marka step walba kan asna waa muhiim waxa soo gelinaysaa warqadii loo yaqaanay foreigner physical examination form oo ah warqadii caafimaadka oo aan videoga hore uga hadalnay warqadii qaabkan u qorneed oo dhakhtarka ka soo buuxinaysay shuruudaha la iska rabo dhamaan waxa uga hadalnaa videoga qaybteeni koowaad oo aad ka heli karto Dalmar channel ayaa soo gelinaysaa marka ugu horeysa labo CV-ga asna upload ayaa leedahay CV-ga 3 ardada masterka haddii aad rabto inaad sameyso baxthi ama baaritaan waa inaad ku soo koobtaa 800 oo eray wax ka yar waxa aad rabto inaad ku diyaariso baxthiga ku sameynayso xaggan ayaad ka soo gelinaysaa waa inaysan ka yaraan 800 oo eray waxa xiga other supporting documents haddii jiraan waxyaabo kale shahaado sharafiyo kale ay haysato ama waxyaabo la mid ah adiga dheeraad ah leedahay waxa leedahay upload ayagan haddii aadan haysan waa iska muhiim maaha not necessary muhiim maaha macnaha laakiin haddii aad haysato waxay badin kartaa chance-kaaga inaad ku guuleysato minxadan doo leedmo kadib waxa leedahay save and next ugu dambeyn marka waxa tagaysaa
submission ama inaad gudbiso dalabkaaga intaadan gudbin xogaa su'aalo ku weydiinaya waxa leedahay waan akhriyay waan fahmay waan raacaya waxa soo dhan tigaya saaraysa kadib waa ka soo su'aalo ku weydiinaya marka ay ka mid tahay hadii aad weyso oo kale scholarship kan ma laga yaabaa inaad jaamacadda gasho adoo lacag aad iska bixinay macnaha wuxuu ku sheegay tuition fee laga rabay bar academic year walba master ka lacag laga rabay marka ma iska bixin kartaa lacagtaas hadii aad weyso scholarship ka no hadii aan iska bixin karo markii hore macnaha ma dalab badan scholarship ka iyo su'aalo noocaas la mid ah taas waxay ahayd ma iska bixinaysaa lacagta oo dhan tan dambe wuxuu ku weydiiyay hadii aad ku guuleysan weydo diyaar ma u tahay inaad hesho oo madanaysa inaad hesho iyadoo partial ama kala bar ah oo macnaha tuition fee laga dhaafaya muxuu ahaa waxyaabo tii hore macnaha boqolkiiba ka xirtay marka dad taas weyso tan kala madanaysa macnaha tan oo kale yes waa dhigi kartaa oo partial ka ah su'aalo noocaas marka ka wada jawaabto su'aashan oo kale wuxuu ku weydiiyay maxaad halkee ka maqashay USTC ma internetka asxaab miyaa ka maqashay safaaradda miyaa ka maqashay dalkaaga ay ku leedahay shiinuhu jaamacad netkeed miyaa ka maqashay marka waxaa leedahay internet saaxiibkeed dalmar ayaan ka maqlay maxaad u dooratay USTC inaad apply garayso why waxaad dhigi kartaa waa jaamacad kaalin fiican kaga jirta adduunka waa program soo jiidasho leh scholarship darteed aan doortay affordable cost oo ah lacag qiimo aad u jaban marka mid ka aad dooranaysaa hadii aad wax kale ku dooratayna xagaas aad ku qoraysaa kadib waxa leedahay confirm and submit xagaas wax kaaga soo dhamaaday wixii la xiriiray online application okay xagaas kuma eeg marka kaas buuxiso waxa laga rabaa markii aad dirto kaas waa online qaybta kale marka warqadihii hadda aad dirto oo dhan recommendation letterkii shahaadooyinkii waxa soo dhan iyo muxuu application form ko buuxa warqada caafimaadka waxa oo dhan wada socda ayaa waxaad ku diraysaa cinwaankan waa cinwaanka jaamacadda boostada ugu diraysaa kahor 10 April 2020 hadaad kadib dirto macna lama wax ka soo qaad ma leh marka 10 April kahor waa dirtaa warqadahaas cinwaankaasna ku diraysaa oo ay jaamacaddu ku leedahay dalshina halkan waxa ku qoran in deadline uu yahay 31 Maaris 2020 halkan waxa ku qoran 10 April waxay kala duwan yihiin kan wuxuu quseeyaa qaybtan online application ka hadda aan buuxinayno quseeyaa isaga qaybtan waa inaad 31 Maars kahor buuxisaa waxan macluumaadkan oo aad samid garaysaa oo aad gudbisaa laakiin ina warqadahan kale aad ku dirto cinwaankan oo boostahan aad u dirto ayadu waxay ka xirmaysaa 10 April oo macna 10 bil ay kala dambeeyaan marka waxaan rajeynayaa inay fahanteen hadduu alidmo waxaa soo socda ayagana sidoo kaleeto scholarship kale oo dawladaha Qatar, Azerbaijan iyo kuwa Yurub sida Hungary, Belgiumka dawladaha Carabta ay kamid tahay Sacuudiga iyo Qatar marka uu soo socda ayagana marka hadii aad dareynayso fadlan page-ka channel-ka saar subscribe sidoo kale si aad nagu dhiirigelisaan inaan soo badino oo aan laablaabno dadaalkeena fadlan muujiya falcelin sida like and comment waxa soo dhan wax nagu kaalmeynayaan inaan si laba jibaarno dadaalkeena marka aad ay u maasan tahay hana ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada la wadaag waa muhiim si markaas faa'iidada dad badan ay u gaarto waa mahadsantiin